koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan marxab marxab yaa ramadaan waddac waddac yaa kalamaan marxab yaa ramadaan waddac waddac yaa kalamaan قيرادن اللو كان وحي شرهودن اللو نغرب مرحب يا رمضان ودع ودع يا كلمان وحي قيرادن اللو كان وحي شرهودن اللو نغرب مرحب يا رمضان ودع ودع يا كلمان الرير كلمانو واسمع سلامينينا إلا بشهر رمضان ولا عبادة سنة قيد كان مسوي مانينا بشهر رمضان warniyo maanta anugu cirna ma joogo dhulla ma joogo waa og tihiin dagaalka ka socda lagu gaalaabixinaya tukarag buntland ayaaba iska soo daandaansatay ciidamadeedii somalilan marka xaaladdu waxay maraysaa bariga dhexe waxaan maqlay war aan aad u jeclaysan waayey oon caloosha ka diiday sarkaalkii somalilan ciidankeeda watay ayay kaga qarrafsiiyeen bay leeyihin reer buntland laakiin warkaas waa war barabagaanta buntland fidinayso marka adeer sarkaalkayga maxamuud daa'uud sidaa inuu cayaartaa ku dhimanayo annugu kama filayno warqowdhinow shaati birmaa u soo xirteen taliyaha oo malakamoodka ka hortaga adeer ciidanka somalilan waxba kama taqaanide waa kamaandoos dallaa'idaha ku booda xabadahan adeer ayagaaba ka sarreeyaba yaa ilka kana xabad ma kartoo yidhaheed lagugu soo kud horaa waxaa loo yidhi malakamayd muddaa u taal mana ku mooga maandhehey warnimiyow ani warsiinhaaye wali madawiine leeraareer awgeed leenhaayen bay dhowika kulmaysanyiin aw shariifa gogol wiin anfidi go'aanada ha ka baxeen dhegawa fartila galadee wasiingari reed may intaas dheera iinka dorana lamana iska mowqifo ay ayinhe madawiinaga jubbaland iyo buntland reer aw leengahan leenkuwaska nagadeen lama kale ahkiin harti galmudug iyo hilshabeelle iyowna mowqifka hooska nagadeen aw shariifna gogolibu si fidi ana dhahdhahaada ka ahawari alsayid ahmed midoobe mayleya dhulka badishaybu unika taliyo haynakii arangale yaablew wari afarsanin madawiine eye siyeed kilomitir wilijay gowjo musrugna siyeed kilomitir ka wareego haay reed meeliuska taliya as warsasho leh wiligaan ahmed midoobe kismaayin dhaafay meel hibree ka taliyo ililay madheegna talis jeydhomba kismaayi ka egya reed may dheega jiray runaan la sheegin maahani rati dameerka raad qurxoon yaa yirinne warninkuma etoobiyaan baa sidoo u hadlay waa maxay mu'miniinta madido ayslaan kulunkaana janaadu waa ka dheega jiri ninku dheerayto reed hoob luuqaday gorod wayti kulunkaana baydhow war shirka baydhaba lacag badan oo imaaraadka ku bixinaa la yidhi maamul goboleedyadana min hal milyan waara u deeqeen lacagtana weli gacmo kuma hayaan imaaraadka ay ka sugayaan la yidhi yaa ilaahay nin gargaara maahayna niman gadan gargaar ku sugu hayna war adeerow ma somalilan bay nimankan ismoodeen somalilan ayada xidhiir lala imaaraadka waxaan la yaabanahay quudaan jirin qoryo u guramiya mayahe ayay ambaro malay badka jir basbaasan tumoyu yaa arro abeesa fuudha idin gashay Donald Trump iyo Israa'iil Falastiin gumaadka ay ku hayaan mujaadimiya war shacabka reer Falastiin ilaah baa badbaadana laakiin dacadu waa u tashaday badda kuma ciyaaran barbaarada malaayin haddaan muruuqa buuxiyo isticmaalku baa jirino bayda u garaaceen waa boqol yahuudiye rag baa biirinaayoho baarka u fiiraaye barqa laguma gaare war maraykanka ayaa bannaanbax ka dhacay oo looga soo hor jeedo foolxumada Donald Trump oo ka wada qudus war muslim iyo gaalba dulmiga Donald Trump u wada waa ka soo horjeeseen istaagtaaga Trump iyo tunko saarashadii taasiisuyaashii arbeed haddaan tawfiiq la isku waafaqin oo tooda la diidin tala toosime nimanyo bakaaratan ka dhacday waxaan soo xasuustay barigii shabaab ka tali jireen suuqa Cabdulla Shideeye ee bakaaraha wiil dhalinyaraha ay ku toogteen kadibna waa ay sugeen inta ay nafta ka baxayso mar kale ay haddana u celiyeen
geliyeen rasaasti oo maxay ka wadaan marka uu dhintay kadibna kaamirooyin ay inta la soo baxeen muuqaal ka duubteen marka waxaa ka muuqatay halkaas wax cabsi ah inaysan qabin waagii ay iyagu suuqa ka talinayeen sidii ay wax ugu dili jireen ayay sameeyeen aaway ciidan ma jooga miyaa meesha dawladdii xaggey aadayne war soddon cabdibiliye ciidankooda ayaa la soo bandhigay bisha ramadaan oo maskiinka markii la dilaa la sawirinayo kuwaas intay ku maqnaayeenne war ra'iisul wasaare xasan cali khayre xuska 15 May ayuu ka qayb galay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed kadibna markii uu khudbada bilaabay wariyaashii oo ku wareegsan ayuu arkay kadibna isagoo xanaaqsan ayuu yiri maalin dhawaad ayay iga duubeen cod aan raali ka ahayn marka iga fogeeyo wariyaasha ayuu yiri war aniga waraan idin siiyo cabdiqaadir nadaara oo ra'iisul wasaaraha u qaabilsanaa saxaafadda waa la ceyriyaa la yiri laakiin asaga wuxuu sheegay inuu iscasilay war xildhibaana rabaahu yiri waradeer madaxweynahayagii jumhuuriyadda Soomaaliland ee Musabbixi wuxuu sheegay in dagaalka ka dhacay Tukarraq uu ka dambeeyo qoladan jaarka madaxweynahooda war madaxweyne farmaajo markuu dagaalka Tukarraq bilaabanay qadar ayuu ku maqnaa ee Musabbixi sidee wax ka yihiin sheegada adiga ma fahmaya adeerow kan yar iga celi kan weyn ana iska celiya waaye waradeer dhowdhowdiina waxaan u arkaa bool isku qaris war Soomaaliland imaaraadkii Buntland kala qaybsanay qowdhino meel fadhiis war ciyaaryahanka Maxamed Saalax kabaha dahabka ayaa la siiyay war ma haysiin oo say u egyihiin kabaha dahabka war kabaha dahabka oo Ingiriisiga sheegays qoxooti mu Ramadaan ugu bixiyo warnimayow kalamaankan ha ka noognay bilisongaadka neebsanaan ilaahay rahmaanka inaan ibaadaysaneen geedkan waaba qalale bisha Ramadaan hanoo qoyan ku caleema fiican noo dhalo war burhaantii adeer khayrka boobo markay baxdana sii ballamo bisha soon qaata barakadeeda ay leey kalamaan marxab marxab ya Ramadaan waddac waddac ya kalamaan marxab ya Ramadaan waddac waddac ya kalamaan wixii qeero dhan allow nookan wixii sharaho dhan allow naga reeb marxab marxab ya Ramadaan waddac waddac ya kalamaan wixii qeero dhan allow nookan wixii sharaho dhan allow naga reeb marxab ya Ramadaan waddac waddac ya kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan marxab marxab ya Ramadaan waddac waddac ya kalamaan marxab ya Ramadaan waddac waddac ya kalamaan wixii qeero dhan allow nookan wixii sharaho dhan allow naga reeb marxab marxab ya Ramadaan waddac waddac ya kalamaan wixii qeero dhan allow nookan wixii sharaho dhan allow naga reeb marxab ya Ramadaan waddac waddac ya kalamaan areer kalamaanow waa ismacsalaamaynayna ilaa iyo bishaan Ramadaan waa la cibaadaysanaa geedkaan mu isugu imaanayna bishaan Ramadaan warkiisiya warniyo maanta anigu cirna ma joogo dhulla ma joogo waa ogtihiin dagaalka ka socda lagu gaalaa bixinaya Tukarraq Buntland ayaa iska soo daandaarsatay ciidamadeedii Soomaaliland marka xaaladdu waxay maraysaa bariga dhexe waxaan maqlay war aan aad u jeclaysan waayey oon caloosha ka diiday sarkaalkii Soomaaliland ciidankeeda watay ayay kaga qarrafsiyeen bay leeyihiin reer Buntland laakiin warkaas waa war propaganda Buntland fidinayso marka adeer sarkaalkayga Maxamuud Daawud sidaa inuu cayaarta ku dhimanayo anagu kama filayno war qowdhinow shaati birma u soo xirteen taliya oo malakamoodka ka hortaga adeer ciidanka Soomaaliland waxba kama taqaanide waa commandos dalaayadaha ku booda xabadahan adeer ayagaba ka sareeyaba ya ilka kana xabad ma karto yirahid lagu soo kud hora waxa loo yiri malakamood muddo u taal mana ku mooga maandhahay warnimaya wani warsiin haaye wali madawiine leereer awgeed leen haayan bay dhowika kulmaysanyiin aw shariifa gogol wiin anfidi go'aanada ha ka baheen dhiga wa fartila galade wasiin ari reed may intaas dheer iyo ka dorana
lamana iska mowqifo ay ayinhe madawiinaga jubbaland iyo buntland reer awleengahan leenkooska nagadeen lama kale hakiin harti galmudug iyo hilshabeelle iyona mowqifkooska nagadeen aw shariifna gogolibu si fidii ana dhahdhahaada ka ahawari alsayid ahmed midoobe mayleya dhulka badishay buu ninka taliyo haynakii arangale yaablew wari afarsanin madawiine eye siyeed kilomitir wilijay gowja musrugna siyeed kilomitir ka wareego haay reed meeli iska taliya as warsasho leh wiligaan ahmed midoobe kismaayin dhaafay meel hibilee ka taliyo ilay madheegna talis jeey dhomba kismaayin ka egya reed may dheega jiray runaan la sheegin maahan rati dameerka raad qurxoon yaa yirine warninkuma Ethiopian baa sidoo hadlay waa maxay muuminiinta madido ay islaan kulunkan janaadu waa ka dheega jiri ninku dheeray toreed hoob luuqaday goradu ay kulunkan baydhow war shirka baydhaba lacag badan oo imaaraadka ku bixinaa la yiri maamul goboleedyadana min hal milyan waara u deeqeen lacagtan wali gacmo kuma hayaan imaaraadka ay ka sugayaan la yiri yaa ilaahay nin gargaar ma ahayna niman gadan gargaar ku sugu hayna war adeerow ma Soomaaliland baa nimanka ismoodeen Soomaaliland ayda xidhiidh la imaaraadka waxa la yaabanaay quudan jirin qoryo u guramiya mayahe ayay ambaro malay badka jir basbaasan tumoyu yaa arro abaasafurha idin gasha Donald Trump iyo Israa'iil Falastiin gumaadka ay ku hayaan mujahidimiya war shacabka reer Falastiin ilaah baa badbaadinay laakiin dacadu waa u tashaday badda kuma ciyaaran barbaarada malaayin haddaan muruuqa buuxiyo isticmaalku baa jirino bayda u garaaceen waa boqol yahuudiye rag baa biirinaayo baarka u fiiraaye barqa lagu magaare war Maraykanka ayaa bannaanbax ka dhacay oo looga soo horjeedo foolxumada Donald Trump oo ka wada Qudus war muslim iyo gaalba dulmiga Donald Trump uu wada waa ka soo horjeeseen istaagtaaga Trump iyo tunko saarashadii ta'siisuyaashii arbeed haddaan tawfiiq la isku waafaqin oo tooda la diidin kala toosime niman yahow bakaaratan ka dhacday waxaan soo xasuustay berigii shabaab ka tali jireen suuqa cabdalle shideeye ee bakaaraha wiil dhalinyaraha ay ku toogteen kadibna waa ay sugeen inta ay nafta ka baxayso mar kale ay haddana u celiyeen rasaastii oo maxay ka wadaan marka uu dhintay kadibna kaamirooyin ay inta la soo baxeen muuqaal ka duubteen marka waxaa ka muuqatay halkaas wax cabsi ah inaysan qabin waagii ay iyagu suuqa ka talinayeen sidii ay wax ugu dili jireen ayay sameeyeen aaway ciidan ma joogo miyaa meesha dawladdii xaggay aadayne war soddon cabdibiliye ciidankooda ayaa la soo bandhigay bishii Ramadaan oo maskiinka markii la dilaa la sawirinayo kuwaas intay ku maqnaayeenne war ra'iisul wasaare xasan cali khayre xuska 15 May ayuu ka qayb galay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed kadibna markii uu khudbada bilaabay wariyaashii oo ku wareegsan ayuu arkay kadibna isagoo xanaaqsan ayuu yiri maalin dhawaad ayay iga duubeen cod aan raali ka ahayn marka iga fogeeyo wariyaasha ayuu yiri war aniga waraan idin siiyo Cabduqaadir Nadaara oo ra'iisul wasaaraha u qaabilsanaa saxaafadda waa la ceyriyaa la yiri laakiin asaga wuxuu sheegay inuu iscasilay war xildhibaana rabaa uu yiri waradeer madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Musabbixi wuxuu sheegay in dagaalka ka dhacay Tukarraq uu ka dambeeyo qoladan jarkan ee madaxweynahooda war madaxweyne farmaajo markuu dagaalka Tukarraq bilaabanay qadar ayuu ku maqnaa ee Musabbixi sidee wax ka yihiin sheegada adiga ma fahmaya adeerow kan yar iga celi kan weyn ana iska celiyaya waaye waradeer dhowdhowdiina waxaan u arkaa boon isku qaris war Soomaaliland imaaraadkii Puntland kala qaybsan qowdino Maflis war ciyaaryahanka Maxamed Saalax kabaha dahabka ayaa la siiyay war ma haysiin oo say u egyihiin kabaha dahabka war kabaha dahabka oo Ingiliis yaa sheegays qaxootiga Ramadaan ugu bixiyo war nimayow Kalamaankan ha ka noognay ha bilisongaadka neebsanaan ilaahay rahmaankan in ibaadaysanaan geedkan waaba qalale bishaan Ramadaan hanoo qoyan kur caleema fiican hanoo dhalo war burhaantii adeer khayrka boobo markay baxdana sii ballamo bisha soon qaata barakadeeda ayaan leeyahay Kalamaan marxab marxab ya Ramadaan waddac waddac ya Kalamaan marxab ya Ramadaan waddac
ودع يا كلمان وحي قيرو دن اللو نوكن وحي شرهو دن اللو نغرب مرحب مرحب يا رمضان ودع ودع يا كلمان وحي قيرو دن اللو نوكن وحي شرهو دن اللو نغرب مرحب يا رمضان ودع ودع يا كلمان